waqtigiisa qaaliga uga mahad celinayna gudoomiyaha xisbiga UCID Faysal Cali oo ah runtii qof inta badan anaga aad noola shaqeeya ka nagad ahaan waqtigan lagu jiray doorashada isku sidkana runtii arinta haweenka si weyn uga shaqeeyay walibana gabdho badan soo saaray arintii saddexda xisbiye la isku raacay 18ka in gobol walba laga soo saaro dumarka baarlamaanka ana ah qofkii commitment-ka ka soo baxay gudoomiye Faysal ee xaqiijiyay runtii aad iyo aad baan ugu mahad celinaa maanta goobtan uu noogu yimi uu martida noogu yahay uu noo dhagan nuguliyay markasta cid kasta oo arinta haweenka u dhagan nugulna runtii waananu soo dhaweynaa waananu jecelnahay goobtan aanu u furnay in lagula tacaalo arrimaha haweenka iyo tacadiyada ka dhanka ah waxa si official loo furay 24kii bisha runtii uu shaqo badan bay qabanaysaa maalinkan maanta saacadan aan joogno in ka badan 5,000 oo kool baa ku soo dhacay waxaanu si anagu ula shaqeynaynaa xoogan laamaha amniga maadaama aanu tacadiye iyo ka shaqeynayno waxyaabahaas waxa aanu koolalka qaarkood u gudbinaynaa Sonsaf oo iyaduna furtay election monitoring room iyo commissionka doorashooyinka qaranka marka cid kasta case kasta meesha uu la taxalluqaano si degdeg ah ugu dirayna waxa noo fadhiya gabdho boolisa waxa noo fadhiya saddexdii xisbi waxa fadhiya commissionka human rights-ka waxa fadhiya disability-ga minority-ga dhammaan dhalinyaro loo tababaray inay call center-kan si immediately uga jawaabaan una gudbiyaan cidda arintaas ka falcelinaysa waxaanu jecelnahay oo aan doonaynaa halkan uga faa'iideysto in bulshada reer Somaliland maanta doorashada isku sidkan runtii adduun weynahoo dhan laynaga daawanayo oo indhihii nagu soo jeedaan caalamku in ay si nabadgelyo u codeeyaan qof kasta markuu codeeyo uu codkiisa dastuuriga guto uu gurigiisa ku laabto kuyuyada iyo maxay haydeen safafka lagu jiro in hooyooyinka iyo dadka muxuu ahaayeen nugul loo horeysiyo dad naxariis badan baynu nahay laakiin haddana waxaan ku buurinayaa in dadka loo horeysiyo way gawaadhi dhaqdhaqaaqaysa ma jirto koolalka nagu soo dhacaya waxay leeyihiin goobihiiba kii aanu markii hore aanu muxuu ahaayeen la oranayaa meel kale ayuu codkaagi yaala ood ka codeynaysaa korta kulli shalay baa message la soo diray laakiin haddana de hooyooyinku intooda badan ma aha dad wax akhristo oo message-kii commission-ku soo diray akhriyaya laakiin waxaanu doonaynaa cid kasta oo caawinaysa hooyada xilkeeda gudanaysa ee cidii ay doonaysay ay ku matali lahayd golaha deegaanka ama golaha wakiilada u codeynaysa ee codkeeda gudanaysa in cid kasta oo caawin karaysa ay caawiso inaynu isu naxariisano aad iyo aad baan gudoomiye Faysal ugu mahad celinayaa bahda media ee iyaduna na soo booqatay dhamaantood magacyadooda ma kala garanaya waan idin wada mahad celinayaa waxaan leeyahay insha Allah doorasho xor oo xalaal ah oo nabadgelyo ah oo aynu maanta ictiraafkeena ku gaadhno Ilaahay Soomaaliya bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh dhammaan shacbiga reer Somaliland waxaan maanta leeyahay ciid wanaagsan waan ka soo baxnay imtixaan weyn waxaan ku guuleysanay in doorasho isku sidkan markii ugu horeysay qabanno laba doorashooyinka waxa ku jira haween 28 marka baaqayga koowaad waxa weeye in marka hore si nabad ah ku codeyno aynu ku dadaalana 28 haweenka inoo sharaxan baarlamaan iyo deegaanba inaynu fursad weyn siino taageero weyn siino codka siino soo saar waxaan kaloo iyagana abiilka raacinayaa barkad jaamac batuun oo isna qaranka oo dhan u sharaxan in isna codka asiisaan nabad ku codeeya waxaan soo booqday maanta xarunta tacadiyada lagu ururiyo haweenka hawl weyn ba ka socotay runtiina si wanaagsan way u dhisan tahay waana wagaasiman tahay waana hambalyeynaya xarunta iyo maamulkeedaba waxaana ka socday hawl weyn oo wadanka oo dhan loo soo gudbinayo call center ku yaala wixii tacadiyay ay arkaan waxaan leeyahay xaruntaasna
وتاجرسنا مبدئيا وأنا هم بلينا يا هدي هاي كذبه مرة بعضهم كعلني تاجرة يديها استدي لا تنكا مشرح هوانكا إنه صوص رمانتا يبرخت شامع بطون doorashadana aynu si nabad u codeyno si nabadana ku dhamayno si nabadana way noogu bilaabantay guul baan ay u tahay Somaliland subhanahu wa ta'ala khayr in badgalaha inuu dhamaato dad khayr qaba ilaahay noo soo saaro waxaan hambalyeynayaan horta nagaad oo xaruntan sameysay ay ugu gargaarayso haweenka aynu soo sharaxnay arintani waxay siinaysaa haweenka niyad bay siinaysaa waxay ogaanayaan in dan laga leeyahay oo meel ay ku soo ciirsadaan ay jirto waxay tabanayaan oo u gaar aad iyo aad baan ugu hambalyeynaya waxaanad moodaa doorashadan in shacabka reer Soomaaliya wada leeyihiin berigi hore saddex xisub baa ordi jiray iyo dawladda laakiin maanta dad badan baa xil iska saaray civil society baa xil iska saaray oo ayaguna aad u shaqeynaya local NGOs kii baa xil iska saaray oo tababaradii bixiyay waa bahal loo wada dheeyahay oo gamcaan is qabsaday waana ta ummad lagu noqon karo waxa dad lagu noqon karaa wada jir lagu noqon karaa waa ogtiin haweenka Somaliland boqolkiiba waxa umanay in ay majority yihiin ilaa 51 ama 52 hadaan boqolkiiba 60 maanta hadda oragtid bread earnerska dadka maanta miiska cuntada keena shaqeeya reerka u shaqeeya waa dumar shaqadii dumarka hayaan ilaahay u abuuray tii aabihina way hayaan aabihii baa meesha ka baxay oo bahal qaad la yiraahdo qaatay marka haweenka reer Somaliland waxay naga mudan yihiin inaynu isgarab taagno inay dad u soo galaan baarlamaanka deegaanka baahidooda adres kale oo soo sheega waxaan jeclahay insha Allah taala hablaha inuu sharaxnay inaynu soo bixi doonaan mas'uuliyad qaadi doonaan ilaahayna ku asturi doono mar labaad ma saxado waan hambalyeynaya nagaad oo hambalyeynaya aad iyo aad baan ugu farxay inay xaruntan keenaan son sabaydan xarun sameysay marka waa la wada leeyahay tacab baan wada gelinaa waxayni waynaga dhaxaya cid gaarin ma leh waa sharafti dalkeena ummadeena ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu gargaar ilaahay subhanahu wa ta'ala wasaay saas wax ku noqon karnaa dhalinyaratiin idoo gamcaan isqabsada waxay ogaataan inaan qabiil qaran sameyn karin iskuul sameyn karin wada sameyn karin qaran baa u baahantii qaranka oo hiliya dad aqoon la keena is ixtiraama is aamina is xamila hay isxaasidina intaas ay ugu tartaamayo assalaamu calaykum wa rahmatullahi بسم الله الرحمن الرحيم aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa xaruntan ururweynaha nagaad ay sameeyeen aad iyo aad baan u hambaleynayaa xilligan xilli aad iyo aad loogu baahnaa weeye marka ugu horeysa sidaynu la wada soconno doorashadii maanta bilaabantay ilaa iyo iminka si aad iyo aad u fiican oo nabadgelyo ah goob kasta oo dalka ka mid ah ayay ka socotaa galbeed ilaa iyo bari waxaan rajeynaynaa in ilaahay nabadgelyo inoogu dhameeyo dadweynaha waxaan u soo jeedinayaa in nabadgelyadii Somaliland caanka ku ahayd ay aad iyo aad ugu mintidaan nabadgelyo doorashada ay ku dhameeyaan is ixtiraamaan maanta waa maalin qaranka aad iyo aad qiimo weyn ugu fadhida laba doorasho ayaynu mar wada gelaynaa goobjoogayaal fara badan oo caalamiya baa inoo yimi maanta Somaliland waa la qiimeynayaa cid waliba arrintaa ha ku tala gasho waxaan kaloo aad iyo aad u doonaynaa inaan u hambalyeyno haweenka ku jira tartanka doorashada dadweynahan waxaan leenahay hal la ilaaliyo wax tacadiyana ayaan lagu samaynin waxaan ku dhahday haweenka doorashada galaya aad iyo aadna ha loo ixtiraamo aad iyo aad baa u mahadsan